dhegeystayaal VOA-da waxaa idiin soo gudbinaysaa waraysiga dhammaystiran oo aynu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee madaxa ururka al-shabaab mukhtaar ruubo cali abuumansuur oo haatan xabsi guri ugu jira dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxa uu isagoo ku sugan magaalada Muqdisho qadka taleefanka ugu waramay Haaruun Macruuf. su-aasha ugu horeysa aan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho? walaal marka hore waan ku mahadcelinayaa waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo VOA-daba. waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga la isoo afduubay oo amisom isoo afduubeen dal iyo dibadba, Soomaali iyo kayrba, xataa qolada beesha caalamka haysam oo kale shaqadiisuu ku waayay. runtii isagana dadkaan u mahadcelinayo ku jiraa. waa mahadsantihiin baan leeyahay. su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hergebsan oo yar xanuunsanayo, waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay 2018 bishii 12 ayaa la isoo afduubtay. ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay. aan telefoon la ii ogolayn oo xuquuqdeydii asaasiga ahayd la ii ogolayn. wax kastoo bani aadan aqulahaa aan la ii ogolayn. marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro, xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladaas. waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee, ma sugan yihiin? amnigu maraaxil buu soo maray. markii hore la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay Muqdisho 6 bilood. xafiiska hay'adda nabad sugidda ayaa lagu hayay. Fahad Yaasiin baa taliya ka ahaa. 6 bilood marxalay ahayd. muddo kale iyadana guri kalaa la geeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahaayeen ciidanka waa la dhaho waa shaamid ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday Gaalkacyo iyo Cadaado iyo Dhuusmareeb baa muddo i hayay. niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku badnaa. waa kuwa qorkayda isku xabadeeyey oo qorkayda nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen. isla warantiiba la igu soo wareejiyey. ammaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin, kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. waxaan rabaa waraysigani waa waraysigii ugu horreeyay aad bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday shabaab, tan iyo intii lagu xiray muddo aada u dheer weeyaan. waxaan waxyar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay. walaal maalinkii la soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12 13 oo khamiis ay tahay ay ahayd. ka hor intaan la isoo xirin ninka joogay amisom secretary u joogo Etoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu isoo dirayo. kadib waa i wacayo waa ii hanjiray waa ku xirayaa. wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajo iyo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow. waxaan ku iri dadna wayna la joogeen oo markhaati amaanta. waxaan ku iri sidaa oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid. murashax baan ahay si sharciya meesha ku joogo. kadib maalinkii la shirqoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay. isagaa i wacay. murashaxiinta oo dhan baa la wacay. imow buu i yiri. waan irid baabuurkayga ugu dambeeyey. iridii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin. ganjeelkii baa qaba la siiyey, banaankaa lagu reebay. kadibna Etoobiyaanka igu soo qamaamay. ciidan labaska amisom xiran bay ahaayeen. kadibna iyagaa saas igu afduubay. jibdil bay igu sameeyeen. hantibay iga dhaceen. dukumeenti bay iga dhaceen. 3 saacadood bay i hayeen. 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid. hortiisana ciidankii Haramcad oo weerarkeeda xooggiisa loo keenay baa joogay. waa la murmay oo Addis Ababa loo qaadi iyo Muqdisho loo qaadi bay ku murmeen korkayga. waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la isoo qaado. marka dadka isoo xiray waa amisom gooni ahaan Etoobiya
marka maxaa lagu soo xiray aan kaa dhexgalo horta intaana sababta u gudbin intaad sababta u gudbin koonfur galbeed in la afduubo doorashadeeda waxaa la iisoo xiray 77 cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la rabo loogu tasarufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiina lagu soo xiray meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suurooreyso ma ahan waa meel waaya iisug marka waaya wax yar iisug marka uu ku haysto weeyaan oo nimankaan uu haya waaya wax yar iisug marka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xirahayd in laga joojiyo tartanka maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed dhinac lagu hubsado eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabtay yaa doonaya inay Addis Ababa lagu geeyo ma Etoobiyaanka mise Soomaalida Etoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la iqaado Addis Ababa bada magaalada oo dhan xabad bay noqotay iyaga naftooda way yaabanaayeen argagax aad u badan baa ka muuqday marka waxay rabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan xagga ii wataan marka kabacdi go-aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halkaa ka bilow keenistii xamar iyo maxaan ku idhaahdaa haddii su-aale lagu weydiiyey haddii shuruuda lagu soo hordhigay wax lagaa codsaday hadday jiraan saadiq joom bay iisoo dhiibeen saadiq muqdisho uu keenay guri madaxtooye agteeda ku yaalo telefoonuu la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hadalo xabadda joojiya dhahu igu yiri waa gartay marka waxaan ku iri xabadda idinkaa bilaabay jooji anigu xabad ma bilaabin magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman adaa qasay idna la hadli maayaan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dawladda mise waraysi bixi buu idaacad la hadal telefoon unbuu ila soo baxay hadal oo dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaaqo ka waaya dhahu igu yiri ayaan ku iri ma iga sumaysid xabadana magaalada nabada adaa bilaabaa ku yiri xabadda dawladda Soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar mas-uuliyiin ama ha aadaan kuwa dawladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliya ma ku yidhi sababtaanaan kuu soo xirnay eedaan kugu soo ogeynaa waxaanan kugu haysanaa haddii horta xeer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in warqad la iisoo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhejiyey koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin horta heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaasoo ma ahayn marka xabsiga kadib aa lasoo mari lahaa marka meeshii ugu horreysay lagu geeyey marka wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaas yaa bixi xafiiska Fahad Yaasiin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tagay qol sanbalosho taliya u deganaa qol ku degan baa lagu xiray 9 biloodna meeshaasaan ku xirnaa waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqaad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysto hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin fariimo qaab daran oo isoo gaarayay way jiraan ninkan ama sidanaan u haynaynaa ama wadan kale in loo tarxiilo ha ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku iri marbaa ugaaskaygu ii yimid ugaas waxaan ku iri anigu qadiyad qabiilna uma xirni qadiyadaas guudaan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuug maahi meel baad u safraysaan waxaan ku iri anigu wadankaanaan leeyahay kanaan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku iri marka ugaasku markaas fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda wadan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay ha waxaasaan la ogol yahay waa iyiri anaaba u sheego ku iri ma ogoli weliba waxaan ku iri wadanka kasta wadankuu yahay hadduu qolkan soo dhexgalo waxaan ku iri waa ka guuraya dawladdu si toosa ma kuu tiri wadan kale ma ku geynaa may ku dheheen iyagu wayba dhuumanayeen oo si uun qolo dalaala bay isticmaalayeen hadee wuxuu qofka hadduu gardaran yahay kumaba hor iman karee waa dhuumanayeen toosba iguma ay imaan
waay waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad ka soo baxaysay 2017 bishii August dagaal baa dabcadeeda dhex maray kabacdina waxaad isku dhiibtay mas'uuliyiinta dawladda ee Xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddadaa hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jiray sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baayo bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jiray markaas aad ka soo baxday shabaab bishii August 2017 adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxeen yani niman macruuf ku ah way ballanka baxyadu oo runtii aad macruuf ugu ah halkaan baydhaba aaday macnaan dhuuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo Jaliil Xuseen baa joogay baabuurkiisa lagu qaado albaabka lagu geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la ii soo dhaweeyey iyo qaabka bahasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqadu ma ahayn warqad dastuur haysata wiilkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhida ma ahayn anigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buufiyey waxaan uga baahnaa ma jirin intaas weeya waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorashaa lagu jiraa doorashadii heer qaran xildhibaanadii la dooranaya aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhowaan seed u aragtaa ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddaad la socoto seed u aragtaa doorashada hadda iyo say ku socoto Soomaaliya 4 sano oo igu dhacday gashay runtii awoodii iyo daaqadii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii lagu difaaci lahaaba gudaheeda lagu soo celiyey hebel weerar iyo hebel soo xir iyo hebel qabo iyo hebel yu tartamin iyo guudkaan kula tubanayo waa ku istaagnay iyo waxaasay ka bixi waayeen qoladii meesha qabsatay anigoo horta guud ahaan Soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dawladda ahu waxaan leeyahay iyagu 3 meel baad farageliseen waa Baydhabo waa Jowhar waa Dhuusmareeb 3 maanta waxa ka taagan waa la arkay amni ahaan ay u dib mareen u dib dhaca amniga ku dhacay dib u dhac waxa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay ana waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan haday meesha wax ka helaan ka qaataan haday waayaan ay ka horreeyay yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maanta doorasho la joogaa idinku dadkii runtii waxgaradka ahaa sida Barsool Jawaari iyo 4 gudoomiye baarlamaan baan ku sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba shiriya reer waqooyi dadku soo baxay Professor Abdi Ismail Samatar iyo Abdi Xaashi iyo dadku soo baxay arka hal kursi baan arkay 2 professor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen wala meesha taaliban ka arkayay dadka reer waqooyi soo baxay arka Jowhar dadka hadda ka soo baxay arka dadka Kismaayo ka soo baxay arka dadka Dhuusmareeb ka soo baxay arka dadkii inta la idin soo saaray shiriya inta markaad fiirisaan xisaaba idin soo bixi doonto inta dhimanayaan la idinku darin dadkii idinka doorta walaalaha farmaajo nabad qanun ku darsaday rag baa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulmiya diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala awood buu geliyay hadday gartaan weeye waxaan kula talinayaa anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin waxa la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda marka aniga isoo xiray dad baa lagu laayay meesha waa dhogay intaa waxa loo samaynayo waa in la soo laabto waan hubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadku waa caddaynaya insha allahu tacaala Soomaalida oo dhanba meel kastay joogaan farmaajo soo celinina hal codna siinina reer koonfur galbeed waxaan leeyahay hal cod hayska siinina way taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan markay hadda hadalkaaga dhageystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaan ku idhaahdaa caradii ay ka keenta hadalka jawaabtaada waa suuragal aniga la isoo xiray lafta gareen waxaa la qumanaa dadkii inuu horumariyo ammaankooda uu horumariyo dhaqaalahooda uu horumariyo marka la isoo xiray anigu Buurakab iyo Baydhabo 60 kilomitir ah baa isku socday
maanta ma isku socdaan. marka laysoo helo ugu dambeysay 2 wada raashin lagu keeni jiray quraacdooma iyo elbert ka kala yimaado midna 90 ay tahay midna 100 iyo ziyaado. labadiiba hadda waa laga soo xiray waa ka go-an yihiin. madaxweynaha qodbooyinkiisii waa la socday oo waajib buu tagay xudur buu tagay wadooyinka nadiif waa kana yeeliisa waana maqlaayay. waajib buu tagay oo tookada ama dhulka marayo lugta ku socdaan imanaya. waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin. sidaa hadda ugu dambeysay 9 gaariyo raashin sidii dadka go'doonsan in la guday waa la socdaa. aad baan uga xumahay. waxaan rajaynayaa in laga bixi doono. bani aadan baan ahay waan aroon kala, laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas la dhihi lahaa intaan Cabdilcasiis wada tartanno hadduusan tuuqa iiga fayn lahaa waxaa la dhihi lahaa waa nin caraysan. maxaa u diidaysan tuuqa? su-aashaas waa nool yahay saadiq joon baa warsay markuu isoo waday meeshaan ikeenay baan ku yidhi war waa la tartamayay lacag badan baad haysateen maxaa idin hor istaagaan ku eri oo lacagtiina ugu guulaysan weyseen oo Ethiopia igu adeegsanaysaan. waa nool yahay igu deeniya maanta. waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuusan meel kala maraynin, laakiin war aan sax ahayn buu sheegay oo yidhi dadku rabitaan kugu dooran maayaan baqdin bay kugu dooranayaan baqdinkaan ka baabi'inayna yidhi. baqdinna ma jiro rabitaankooday ahayd. siyaabadi shaksiyan uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo aan qasab meesha lagu geynin baan rabay. shaksiyan uma haysto, reer ahaan uma haysto, halkee uma haysto. waxaan rabay inaan fursad ku siiyo oo kale markii lagu xiray lagu soo qabtay taageerayaasha dowladda dadka taageersanaa in lagu xiro xarigaagana raalli ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dowladda iyo kuwo kale waxay ku doodeen Mukhtaar Roobow siduu shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysan, marna ma aynaan arkin isagoo cambaaraynaya al-shabaab oo dhahaya waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka ku salaysnaa. fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadal ku salaysan iyo ururka al-shabaab labadaba? shabaab isagu insha allahu tacaala anoo xor ahoo waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona. laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqle. waxaan maqlay ninkii markaa joogay booliiska oo asluubta jooga uu sheegay 2 dukumenti baan ka hayaa uu dowladda dhexe uu soo dhigay uu dhahayo inaan habeenkiiba 100 shabaab aan keenayo inagoo qaanuun la marsiin aan gurigeyga geysanayo oo aan doorashada ku boorisabo in Axmed Madoobe uu isoo farayo diyaarada hub uu soo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo. waxaas oo dhan ordiga ka weyne waxa oo wadan lagala haayo unbay ka ahayde waxba asaas rasmi ale ma ahayn. shabaab meeshaan kusoo kala tagin anigu cid igama saarine anaa ka tegay kale soo weeraray. markaan kasoo tegay 5 sano iyo 7 bil baa u dhexaysay. wiilashaygaa ku dhintay oo farmaajo wiil kagama dhiman oo Xasan Khayro markaa joogay kagama dhiman. marka waxyaabaha qaarkooda runtii waxaa jawaab badan u baahan maaha. laakiin mawduuca shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa. qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa walaal qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo. taas walaal horta maxaa dhahaysaa iyaga kelimaad noo qoray markaa nimid waa ogeyno intaas adoo dhahda mooyaane war kale gaw iyo gash male. intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda adiga haddii lagu dhaho war qubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto Haaruun maxaa imaan karo. weliba adaa isoo xasuusiyay hadal muhiima baan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray. Fahad maanta waa nool yahay ha igu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yidhi codadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo. warkaa macadiya faahfaahin codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto 149 bay ahaayeen aan u malaynaya. wuxuu yidhi dowladda iyadu aqoonsan mayso. marka maxaad ugu jawaabtay? wuxuu kaloo igu yidhi haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dowladda kusoo dhex noqon mayso. laba marka waxaa ku furan uu igu yidhi saaxiibadaadii hore inaad aado mana ku sahlan uu igu yidhi. taas
macnaheeda nabad wax ku raadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiibadaadii hore aad meeshaas uma dawlada ka hadla mise milkiilaha fahad lagu sheegaa run aho waxaan isagaa iskale oo waxa mise wax oo soomaali ay leedahay waa ma ii sheegi kartaa ninka saas aniga ii galay oo saas igula hadlay hadda wuxuu ololeynaya inuu beledweyne ama jawhar intuu tago baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu haystiiri ma arag uu dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorsadiisii yareed uga dhex fadhiistuu rabaa ka war waa garta waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo horaan u cadeeyey kaas walaalhaadin adoo aada umahadsan hadda kaas xabsi ku cadayn maaye horaan u cadeeyey kaas wararkaygii dib u raaco huri mowqifkaygana weligiisaba waa caddaa anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaartood leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dawladda ma soo baxmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato taas haddii waa xaniitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo lakala helo dad kuma arko saas weya marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xidhnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne farmaajo telefoon ma kugula hadlay ma ku qaabilay ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imimiya ha markaad duurka ka timid marna miyuu ku soo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiiyey hadalla ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma ku wada hadashay ha ilaa 6 mar baan kulanay waa gartay wax bal ma noo faahfaahin kartaa kulamadaas baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aad buu u macaanaa laakiin wax tanfiida yani wax fulin ama una lahayn waa gartay markii hadda ololaha aan galayna mar buu iisoo diray allah u naxariistee nin dhintay ugaas maxmed weli oo lawada yaqaano ugaaska waa ii yimid farmaajo ay soo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad muqdisho ku laabatood u tagto waa gartay marka dad baba nala joogo maanta nool waxaan ku iri dib ma lahane aan wada hadalna aan ku iri anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baanu ku wada hadalnay magar wuxuu igu yiri soo laabo waxaan ku iri madaxweyne dib ma lahane warqadaad soo saarteen waxaa ku qoran inaanaan tartami karin warqada ma ogtahay baan idhi hoogaa waa ka warwareegay waa gartay kadib waxaan ku iri niyow dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheedu waxa weeyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamadna ima dhiginay shaksi baa yidhi waxaan ku iri warqada ka laabta waan imanaya kadib madaxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow intaasuu dhaafi waayey su-aasha kale la isweydiin kara sheekh mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaan sheegay uu yahay kii ugu horreeyaad bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tegteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kusadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiida isku fahma ama ku kala tagaa iyaguna way ii qirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka aqiidaan ku kala tagnay kadib anigu deegaankaygaan iska tagay oon iska joogay duruus baan ku akrinayay meeshayda anoo iska joogo ilaah qadarkiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan oo waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdilqaadir jacnay baa la dilay raxmatullahi tacaala caleyhi sheekha markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusataan v-oda codkaa inaad ka helaysaan u malayn waa kaan idhi sheekhu waa shahiidulmixraab dawdi baa lagu dilay nin muslim oo tukanayo la dilay cumar ibn alkhataaba igu horeeyey
kan dilayna gaalkiibuu ahaa Lu'lu al-Majuusi. ninka Sheekh Cabdiqaadir dilay waxaan ku iri shaqadii majuusiyad buu qabtay, shaqo muslim ma qaban. iyaguna Sheekh Cabdiqaadir oo tukanayo rukuucsan bay salaada ku dileen, ay maanta tirsan yihiin Sheekh Cabdiqaadir dileen. ana shadiidul maxraab baan u arkaa marka meesha lagu kala tegay. Haaruunow kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka oo inaan kuu sheega ay tahay waxaa kamid a hadda marka laisoo weerari karay anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay Maraykanka iga qaadeen lacagtay saareen. Markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan ku waaba dhinteen allah unaxariisanta dhimatee ayaa isoo waceen. markaan saas leeyahayna walaal Haaruun anigu iyagaa igaalaysiinayo, anigu gaalaysiin maayo. muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo, laakiin iyagu way igaalaysiiyaan. inay igaalaysiiyaan nafteedana haddana inaan adigada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay. anigu gaalaysiin maayo. ragii baa isoo wacday waxay igu yidhaahdeen Maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad beeniso, aad tiraahdo lacag la igama qaadi karo, anaa u baahan, way isaarnaanaysaa. kir baa la igu yiri waa isaaran tahay, anaa raba, sidaydaan ku rabaa, waa idin layn doonaa, waa noo tahay dhaba og dhihi maayaan ku iri. marka horena isaara ma dhihin, iga qaadana ma dhihin, dhihna maayaan ku iri. markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaa, qaar iyagii kamid ay igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo iri. waxaan ku iri dhiigayga kelimo Maraykan loogu jawaabo baaduu ku banaanaado, uu banaanaayo iga tagaan ku iri. yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay? yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay? waa rag dhex joogo. ani hadda magacyadooda sheegi maayo. waa rag badan oo lama aho iyagu weliba naseexayba ka ahayd. saasaaba la toosnayd. waxay lahaayeen qaarkooda qaar iyada toos ugu fakeraya, qaar ka fakar duwan, labadaba way jireen. waxay lahaayeen qaar ogow saas hadday tahay raalli baad ka tahay, kufrinimo lagu raalli noqdo weeyaan, kan weeyaan bay tahay. waa gartay. marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan, marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aad sheegtay, oo dad badan oo rayida maxaan ku idhaha waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba. marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay? horta weligayguba anigu mu'aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin, mana la igu yaqaano. cali dheerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad maqlaysay ka dhex raadi. weligay anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin, dawladnimada la raadiyo, wixii dawli ah in lala diriro, wixii xaqana laga shaqeeyo. intaas un baan qabay. qofka bani aadanka oo dhanba kulli ibnu aadan khata, khayru khataa'ina tawaabuun. wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu u khaldamay, rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag. wixii wax kastoo wanaagsanaayo aan sameeyeyna ka dhoomamay maayo. waay su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashana dhegeysanaysa waxa weeyaan, al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo? diyaar ma u yihiin wada xaajood? jawaabtaada. kan hataa meel haddaan kaga noqdo dadka iyo dadka hala daayada waxyaabaha ugu daran oo nimankaas aan ku dirirnay ba ahayd. waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 708 iyo dad badan baan meesha ugu tagnay. runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen. qofna ma aanan wax yeelayn. maalinkaas Axmed baa noola waa isoo wacay, wuxuu igu yiri qadiyadda baydhabo aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay, waa in dawo loo helaa. markaasaan ku iri maxaa u dawo ah? wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa. maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo, laakiin ma nabaayo waa warjiray. maalinkaasna qofna laguma dilin meeshaas oo si nabada. dadka waxaan ku yiri anigu cid kastoo dawlad la shaqaysay kulli waa afis guud, cidna ma haysano. waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday. waa qaabka runtii Taalibaan intay qaadatay hadda wadankoodii ay ku joogaan oo shacabkoodii heshiis kula yihiin. waad aragtay oo qofkii maalinba
hataa nin gaala maalin meel ama shir la gala waa gaalowday waa kuwaan lehe waa kuwa hadda taalibaan safiiradii iyo dawladihii iyo dunyadii o dhan ay dhex fadhido ay u gacmahaadinayaan 6 wadan oo xuduuda lale kulli ay leeyihiin calaaqadeena way fiican tahay ninkii keligiisa qof isku soo xiro oo yidhaahdo keligay baa muslima harun horta adoo raalli ah laba qoloba waxyaab leeday sameeyeen nimankaanun islaamnimadii bay madaxa kugtiisa saarteen oo dhaheen qofkaan rabana waa gelinaynaa kaan rabana waa ka beenayna qofkii ra'yi nagu khilaafo muslimba ma ahan dawladnimadiina gruubkaa hadda haystaa afduubeen waxay leeyihiin carar xildhibaan ma noqonaysid wasiir ma noqonaysid ma soo gelaysid iyaguna dawladnimadii madaxa ku sitaan labada waa inay soo dhigaan diintana waa dadka oo dhan isla leh dawladnimadana umadoodanaa ka dhexaysa taas markaan harun abo iyo raayaan ka tago tan oo su-aasha igu eligtii dambe ma lala hadli karaa diyaar mooyin wada hadal waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dawladii la hadli lahayd dawladdan ma ahan haddii dawlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo wadanka inay dejiso run ka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma kare dad badan hadda waxaa miisaal loogu soo qaataa aniga waxay leeyihin ninkaasaa isu diiday oo meeshii tagay kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan beri waxay jawaabahay qorqorayeen war arkeysa ar qofkii utaga taasaa ku dhacaysaa laleeyahay marka haddii la helo dawlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa boqdaayo dawladda anaaba meesha ku haysa mar horeyba ka iman lahaye waaye su-aasha ugu dambeysaan raba inaan ku weydiye waxa weeyaan hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akriyey runtii hadday bacda tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamiga iyagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadka iyaga iyo dalka iyaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu ma niyad jabi maayan haddaanan dhiman insha allahu waan sii wadi doonaa masiiradaas ma joojinay